bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal mar kale kusoo dhawaada janalka daljil media. Ururka Al-Shabaab ayaa guulo ka sheegtay weerar maanta gelinkii dambe ay ka geysteen agagaarka deegaanada Kismaayo iyo Janaale, kuwa oo ay sheegeen inay ku dileen askar ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in ay 3 askari uu ku jiro taliye horjoogo u ahaa askartaasi ay ku dileen duleedka magaalada Janaale, isla markaasina ay ka furteen qoryihii ay wateen oo ay sheegeen inay ahaayeen nooca loo yaqaano AK-47. saraakiishan la weeraray ayaa howlgal dhinaca amni sugidda ku jiray, waxayna sidoo kale ciidamadani ka tirsanaayeen ciidamada maamulka Jubbaland ee ku sugnaa deegaanadaasi. Ururka Al-Shabaab ayaa ku sugan deegaano badan oo ka mid ah maamul goboleedka Jubbaland, iyadoo maamulkaasi weli la daaladhacayo sidii uga xoreyn lahaa deegaanada ku harsan gacanta ururka Al-Shabaab. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay inay dhawaanahan kordhin doonaan weerarada ay la beegsanayaan laamaha ammaanka dowladda federaalk Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadaba. Waxa ay Soomaaliya gelaysaa xilli doorasho, waxaana ururka Al-Shabaab looga bartay inay kordhiyaan weerarada noocan oo kale ah xilliyada doorashooyinka. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo midowda musharaxiinta ayaa kulankoodii saddexaad uu kaga socdaa hotelka Dekaale ee ku yaala gudaha elboorka aadan cadde ee magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya. kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ah inta badan xubnaha midowda musharaxiinta uu u horeeyo gudoomiyaha midowda musharaxiinta madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Shirkan oo ah midkii saddexaad waxaa looga hadli doonaa xaaladda siyaasadda dalka, gaar ahaan khilaafka ka jira doorashooyinka dalka oo muddo dhaafay. ra-iisul wasaare Rooble iyo midowda musharaxiinta ayaa hore u yeeshay 2 kulan oo arrimihii ugu badnaa ee looga hadlay ay ahaayeen banaanbaxyada ay midowda musharaxiintu qorsheeyeen inay ka dhacaan dhowaan gudaha dalka Soomaaliya. banaanbaxyadan ayaa dowladdu horey u mamnuucday, waxaana khilaafaad ka dhashay banaanbaxyadaasi sababeyn dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah, kuwa oo dhacay 19 bishaynu kasoo gudubnay ee February 2021. banaanbaxa xiga ayaa loo ballansan yahay inuu dhaco maalinta berrito ah haddii allaha awood leh ogolaado, waxayna xukuumadda federaalk ay ballan qaaday in iyadu kala shaqayn doonto dhinaca ammaanka xubnaha midowda musharaxiinta iyagoo mudaharaadaya. wixii kusoo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii allaha awood leh ogolaado.